بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما داودياشا نوgu taxan waa cashirkeennii labaad ee duruustii ramadaanka. Saan hore usoo sheegnay cashirkani wuxuu ku saabsan yahay in ramadaanka loo diyaar garoobo. Ramadaanku waa camal iyo cibaado weyn. Camal iyo cibaado weyn waxay u baahan tahay inaad diyaar garoow fiican oo weyn u samayso. Haddaba see loogu diyaar garoobayaa ramadaanka? waxaa loogu diyaar garoobayaa ugu muhiimsan inaad axkaamtiisa barato iyo siduu ku ansixi lahaa. waxaad u diyaar garoobaysaa cibaado weyn oo aan casharada dambe ku sheegi doonno fadligay leedahay. casharka saddexaadna xukunkeedu waajibaadka arkaanta islaamka inay ka mid tahay aan ku sheegi doonno. cibaadada intaa la eg adiguna aakhare janno ku raadinayso wax buriyaa jira, waxay ku asaxdana waa jira. saa darteed si aadan u qaldamin cibaadadiina aan lagugu soo celin, waxaa koobaadee ugu muhiimsanayd ugu diyaar garowdaayey waa inaad axkaamteeda barato. saa darteed baanan duruustan iyo xalqadahan u duubaynaa si aad uga faa'iidaysato inaad sida ugu fiican u soonto. waxaa labaada loogu diyaar garoobayaa in waxa ugu dambeeya waajib horoo lagu lahaa hadduu jiro aad ka gaadhsiiso intaad ka gaadhsiin karto. xataa maalinka ugu dambaysa qofkii qado soomaya waa loo ogolyahay wixii qado lagugu lahaa inaad ka gaadhsiiso oo inta ugu badaneed isdhaafin karteed waajibkeedii iska ridi karto iska ridi. waayo adoo awoodoo qadayn kara hadduu kugu soo gala kii kale qadihiina waa lagugu lahaanayaa, dembina waa ku soo gaadhaya. 3 in labada maalmood ee u dambaysa soonka sunnada aad joojiso oo nabigeena ay ka sugantahay alayhi salatu wasalaam, laa tataqadamu ramadaana bisawmi yowmin walaa yowmayn. soom hal maalin iyo 2 maalmood ha kala hormarina. saa darteed haddoo kale marka la soo gaadho soonka sunnada ah waa la joojinayaa. maalinka 30aad ee laga shakisan yahayna si gaara haddaan bishii la arag inaad ramadaan ahaan inaad soonta lama ogola. Cumar ibn Yaasir waa kii lahaa, man saama alyowma aladii yashaku fiihi faqad casaa abalqaasimi sala allahu alayh wasalam. nin qofka sooma maalinka laga shakisan yahay ma shacbaan 30keed baa mise waa ramadaan kowdeed, nebi maxamed buu caasiyey calayhi salaatu wasalaam oo dariiqiisii khilaafay. saa darteed tatawuca iyo soonka tatawuca ee sunnada ah inaad joojisaa la doonayaa maalin iyo 2 markay ka dhiman tahay oo haddoo kale ah. qodobka afraad eed ugu diyaar garoobayso waa dhaqaale ahaan inaad diyaar garowda wey. bisha ramadaan ajir badan baa waxaa leh masaakiinta dadka la afuriyo, miskiin iyo qaniba timir iyo biyo iyo ku afuro aad siiso. wuxuu u baahan yahay miisaaniyadaadii iyo bajetkaaga iyo dhaqaalahaagii inaad ka goyso ood u soo diyaar garowdo. waxaa kaloo wanaagsan dadka masaakiinta in la quudiyo. sadaqaadka ramadaanku aad bay uga fadli badan yihiin sadaqaadka kale. qoysas inaabad ku kaalmayso wax quudinaya qoys dhan, waxaa laga yaabaa qoys dhanoo 4 carruur iyo aabbiyo hooye ah bisha ramadaan oo dhan inay wax $100 ka yar ku filanta. intaa waxay cunayeen iyo afurkoodii iyo suxuurtoodii in ajar lagu qoro. xikmaddana waxaa ka mid ahayd saan sheegi doonna xikamka waxaa ka mid ah in masaakiinta gaajaysan la xasuusto marka gaajada la dareemo. xasuusta dadkaasi dhaqaale ahaan inaad diyaargarooda u baahan tahay. inagu bisha ramadaan waana la soomaa, cuntaduna way yaraataa, qarashkuna kor buu u kacaa iyadoon masaakiin waxba la siin. raashinka waa la qubaa, waa la daadiyaa. dadka waxaad mooddaa maqhribkii inay 10 qof ku cunaysa meeshaad moodaysa hal qof wuxuu cunayo. miiska intaasoo cunno ah la soo dhigi. bishan bishii soonka weeye, bishii cuntada maaha. bishii raashin badan lagu mashquuli lahaana maaha. gabdhuhuna casar laga bilaabo ama duhur laga bilaabo jikay taagan yihiin halkay juz qur'aan akhrisan lahaayeen. ramadaanka bishan jirka inuu nadiif noqdo loogu talagalay laguna caafimaadaba
difaaca jirkuna ugu fiican yahay say dhakhaatiirtu yidhahdeen markaad sooman tahay habeenkii inaad cubto ood buuxiso uma baahnid inaad wax yar cuntaad u baahto wax badanna maba cuni kartid waxaad miis u buuxisa ma laha kharashka intii kugu bixi jirtay ka yar waa inay kugu baxdaa laakiin beddelkii waa inaad masaakiintii iyo dadkii baahnaa iyo ajir ku raadsataa oo dad sooman afurisaa qof soomanood afurisay ajirkiisoo kale aad leedahay adigu hal maalin baad soomi kartaa laakiin 10 maalmood oo kale ajirkood inaad afurisaad ku heli kartaa kharash ahaan inaad diyaar garowday u baahan tahay marka qodobka shanaad ee diyaar garowga u baahan wakhtigaaga inaad kala habaysood kala qoondaysaad u baahan tahay oo shaqooyinka iyo mashquulka iska yarayso oo maalintiina qur-aanka akhriskiisa iyo dikriga iyo taacada iyo cibaadada iyo ducada aad u gacan bannaanaato habeenkiina qiyaamka iyo ducada iyo allabariga aad u gacan bannaanaato qof maantoo dhan ordayoon dikri iyo qur-aan haleelin habeenkiina isagoo daalan intuu yimid balaqduu yidhi suxuurta iyo allah ugu soo kacay soomkii macnihiisi iyo nuxurkiisii wax badan baa ku dhaafaya 11 bilood adduunyadaad gaari weyday bil ramadaan keliya gaari maysid ku talagal bishan inay tahay soonkii ugu dambeeyeed nolol ku soo gaadho hawsha adduunkana iska yaree shaqooyinkana kala yaree haddaad fasax qaadan lahayd sanadka dhanna bishanun ku aadi cibaadada u gacan bannaanow cibaadada aad u soo gacan bannaanaatay inta ugu badaneed cibaadaysan karteed sunno iyo khayr iyo duca iyo wanaag samayn karta iyo qur-aan la akhriyo dikri ilaahay si aad u samayso wakhtigaagana inaad wakhti ahaan ugu diyaar garowdaad u baahan tahay inaasi waa qaybo kooban oo ka mid ah sida ugu fiicanay tahay bisha ramadaan inaan ugu diyaar garowno halkaana waxaan ku gabagabeynaynaa xalqadeennii labaad insha allah xalqadda saddexaad baan xukumka iyo xikmadda isugu iman doonaa intaan taa ku kulmayna anigiyo tiimkuwa waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu